بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد أيها الإخوة، درسك وحن كذا رمضان قصة ما قصصك بقر رضا قرآنك تلمامي. رب سبحانه وتعالى قرآنك وحينا وتلمامي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصوينك أما ورارك شيكوينك كوسابسا وضور رمضتك ما إله إليه سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون. وحي مدينين يفكران. أما أنت إلهي القرآن تقصك والرمي أيوحنا لي فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار قوة حقاطة أما قوة حقوسطة ضدك أركتبه وصاحبك أهو. قرآنك إن بدنوا كم دوا قصة وحين ذكرنا إن كل ربع أما ثلث كدردو أي قصص قصص كاسي رب سبحانه وتعالى وحنا وقوى الرمي نرشينا واحتروا قرآن كقصص كيسا انت بدل مقوى الرمي كما مضنان بدل مصيوة ذاتك الميشي يشوغي تشيرين وقت بيا يشوغي مقاعية جدو وحيابان سيكما بدنا waxaan isku dayayaa markaa qayb ka mid ah qisaska quraanka inaan si guud isu dul taago anoo raba bal inaan wax ka faa'iideysan karno inaan eegno. quraanku wuxuu ka warramayaa nabi ibraahim iyo boqor saddex martay fi suurat al-baqara. wuxuu ka warramayaa boqor kale oo muslima oo reer banu israa'iil dagaal galiyay. wuxuu kale ka warramayaa nabi yuusuf iyo boqorkii xilligiisii joogay iyo xiriirkii dhex maray. fi suurati al-kahf ilaahay wuxuu kaga warramayaa saddex boqor asxaabu al-kahfku boqorradii ay ka soo carareen iyo boqorkii khidr iyo nabi muuse doonta ay ka dalooliyeen ku socotay iyo dulqarnayn boqor la yidhaahdo. fi suurati an-naml ilaahay wuxuu kaga warramayaa subxaana wa tacaala nabi sulaymaan iyo boqorad kale lamadu balqis magaceeda ku sheegaan malikatu saba. fi suurati saba boqortooyadii daawuud baa ilaahay kaga warramaya. fi suurati al-buruuj asxaabu al-khuduud iyo boqorradii ay gubayay baa ilaahay kaga warramaya. waxaa kaloo alla ka warramaya fircawn oo qur-aanka 67 meelood magaciisu ku soo aroray 23 suuradoodna ku jira. kuwa aynu sheegnay hore inta badan waa boqorradii gaalada ahaa. waxaa kaloo qur-aanku ka warramaya boqorro saalixiina iyaga wuu magac dhabay qur-aanku markuu ka warramayo. waxaa ka mid ah nabiyullaahi sulaymaan iyo nabiyullaahi daawuud iyo dulqarnayn rajul saalix iyo taaluut. waa boqorro islaamiya. boqorrada aynu soo tilmaamnay kuwan baa ka mida oo saalixiina. waxaa ka mida kuwo tyrania ama dictatorship ama wax gumaadayay oo wax laynayay. kuwa saalixiinta ah sifaad buu qur-aanku kaga warramay. kuwa wax gumaaday ama se wax laaya boqorrada kalaana sifaad baa la kaga warramay. iyaga laftoodu waa category kala gedisan. boqorro dadkoodii nabadu horseeday sida malikatu saba iyo boqorkii nabi yuusuf la kulmiyo kuwa lamida iyo kuwo dadkoodii halaagu horseeday. cumuuman waxaan rabaa inaan mas'alo iyada isku taago ah qisaskan boqorrada waxaa ka warramaya qur'aanka makiga ah. yani dadka badhba waxay ama mustashriqiinta iyo afkaartooda dadka u rixinaya waxay moodaan islaamku markii horena dacwo iska silmiyo oo nabadun ka warramaysa iyo tawxiid iyo intaan inuu ahaa. markii madiine la tegay in dowladnimada maya. qur-aanku wuxuu inoo soo bandhigayaa usuusha fikriga siyaasiga